بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارته هودا نقل سقطاي كسر دوادة وركة تلفزيون كقرن كسومالي لان وهذا هو كليدي كي مادة استوديو قد حق تلفزيون كقرن كل عاصمة هرقيسة وحنا وركن إذا سعودين دونا هدي الله أودنا وقراضو أنا جو ردوان عيدي إسماعيل كيدا قضبض يدا وركن ودور كررنا وحكمدا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo xariga ka jaray dhismo cusub oo casri ah oo wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland ay ka hirgelisay xaruntii wasaaraddaas ee caasimadda Hargeysa. wasiirka xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdulaahi Maxamed Daahir Cukuse oo shaaciyay inay soo gabagabowday qaybta koowaad ee talaalka xoolaha Soomaaliland sidoo kalena ka hadlay halka uu marayo dhoofka xoolaha ee muusinka xajka ee sanadkan. xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda golayaasha qaranka Soomaaliland ayaa socdaal shaqo ku gaadhay degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag halkaas oo ay u tageen xalinta shaqaaqo colaadeed oo dhawaan ku dhaxmartay deegaanada laba beelood oo reer Soomaaliland oo deegaanada wada degaa. bulshada reer Soomaaliland ee ku dhaqan degmooyinka iyo gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kuwa ku nool dalalka qurbaha ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiska maalgelinta dekada Berbera ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ay ku kala saxiixdeen xukuumadda Soomaaliland iyo madaxda shirkadda Dubai Ball World. أحمد فارح عذره وزير كعدالة iyo arrimaha garsoorka Soomaaliland ayaa tababar uga furay caasimadda Hargeysa xubno ka kala socday bahda cadaaladda ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. daawadayaal kuwaas waa qodobadeeda warka ugu doorka roon imkii haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa xariga ka jaray dhismo cusub oo casri ah oo wasaaradda tamarta iyo macdanta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka dhisatay xaruntoodii hore ee caasimadda Hargeysa. wariyahayaga Maxamed Xuseen Cali ayaa looga qayb galay munaasabadda warkan uu nooga diyaariyay. xukuumadda horseedka u yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo lagu majeerto tan iyo intii aynu xurriyadda la soo noqonay inay tahay xukuumaddii dhismaha iyo horumarka ayaa dhismo kale oo casri ah oo ay wasaaradda macdanta iyo tamartu ka dhisatay xaruntoodii hore uu maanta madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo xadhiga ka jaray. bismillaahir rahmaanir rahiim. iyadoo xaflad si heer sare ah loo agaasimay lagu qabtay madal loogu talagalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxa uu furitaanka dhismaha xaruntan kadib maray qaybo badan oo kamid ah iyadoo uu helinayay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland injineer Xuseen Cabdi Ducaale oo ka warbixiyay ayna wehelinayeen qaar kamid ah madaxda waaxyaha iyo qaybuhu. madaxweyne maabkan wuxuu muujinayaa shaqada soo socotay dalka u soo socota mustaqbalka u soo socota oo seismic wax la yiraahdo waxa weeye sahaminta shidaalka oo dalka sanadku intaanu dhamaan ka bilaamisa sidaynu ilaahay ka rajeynayno oo qaybo ballaaran oo dalka kamida ka bilaamiso ay ka bilaamiso bariga fog ilaa dhanaano ka bilaamiso oo bariga Sanaag all the way to Balligubadle waxa shuqudada aad aragtaa waa shuqudada moogtay la raacayo ee bahalo waaweyn oo shaagag waaweyn ba ayaa dhulka maraya oo garaacaya oo dhageysanaya macluumaadkaas la guraya muddo ilaa sanada intaas oo meelood oo goobood oo dalka ah taadooyin insha Allah taala hadii ay macluumaadkaasi noqdaan macluumaad lagu guuri karo waxa loo gudbayaa qodaal ba loo gudbayaa waxaanu filaynaa shaqadan insha Allah taala seismiga loo yaqaano inay ka bilaabmi doonto insha Allah dalka inta sanadku intaan inoo dhamaan waxa suurtagal madaxweyne ah in muxuu ahaay inta talada hayso dalka insha Allah taala inay noqoto maalinkan maanta markii ugu horeysay intii aynu dowladnimada la soo noqonay inaynu shidaal baalid xajmiga leeg inuu dalkan uu ka bilaabo insha Allah taala waynu insha Allah taala u gudubno inaynu magaalada moogta helo khayraad moogta tijaariya. xafladda furitaanka xarunta wasaaradda tamarta iyo macdanta oo
ay ka qayb galeen gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland mudane Saleebaan Maxamuud Aadan gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland xubno ka kala socday golayaasha qaranka gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye mas'uuliyiin ka socotay shirkado caalami ah iyo kuwa wadani ah iyo howlwadeenada wasaaraddaasi hadaluu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ka jeediyay waxa uu kaga hadlay isbedelka xukuumadda uu garwadeenka ka yahay ay ka muujisay dalka Soomaaliland muddadii ay talada dalka ay haysay mudanayaal iyo marwooyin waxaynu ka wada dhereegsanahay halka uu dalkeenu marayo dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba marka ay xukuumadda aan garwadaanka ka ahay talada dalka qabatay iyo halka uu maanta dalkeenu marayo waxaa maragmadoona in xukuumaddeeda ay xaqiijisay isbeddel laxaad leh iyo horumar ballaaran oo la taaban karo oo dhinacyo badan leh kaasoo ugu dambeeyey heshiiska casriyeynta iyo ballaarinta dekedda berbera oo shalay kala saxeexdeen dowladda imaaraadka carabta iyo dowladda Soomaaliland waana guul u soo heetay qarankeena madaxweynuhu waxa uu xusay in sharaf ay u tahay in xadhiga uu ka jaro dhismahan isagoo bogaadiyay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland mudane Xuseen Cabdi Ducaale shirkadda dhistay iyo kuwa kale ka qayb galay mudane marwooyin waxaa sharaf iyo maamuus ah inaan maanta xariga ka jaro dhismaha bilicda san ee casriga ah ee loo dhisay wasaaradda macdanta iyo tamarta waxaa halka si mug leh uga mahadnaqayaa wasiirka macdanta iyo tamarta mudane Xuseen Cabdi Ducaale iyo shaqaalaha wasaaraddiisa maadaama ay suurto geliyeen dhismaha ugu quruxda badan dhismayaasha ay ilaa haata xukuumaddeedu yeelato waa dhismo tusaale iyo daasho badan oo qaabka uu casriga ah ee loo baahan yahay in loo dhiso xarumaha dawladda wasiirka macdanta iyo tamarta waxaa kale oo aan uga mahad celinayaa dadaalka iyo kartida uu muujiyey ee shirkadaha baadhista shidaalka ku qalciyey inay naga caawiyaan kharashka ku baxaya dhismaha iyo qalabaynta dhismaha bilicda san ee casriga ah taasoo culayskii ka qaaday in xukuumaddu bixiso wixii kharash dhisme iyo qalaba ku bixi lahaa xarunta wasaaradda macdanta iyo tamarta sidoo kale waxaan jecelahay inaan iyagana halkan si weyn uga mahadnaqo shirkadihii baadhista shidaalka iyagu ajiibay codsigii wasiirka macdanta iyo tamarta kuwaasoo xukuumad ahaan naga caawiyey kharashka ku baxay dhismaha iyo qalabaynta dhismaha casriga ah ee yeelatay wasaaradda macdanta iyo tamartu waxaa kaloo aan jecelahay inaan halkan ku bogaadiyo shirkadda dhismaha ee najax iyagu xarunta dhisay iyo shirkadda Ria Architects oo iyagu lahaa naqshadda dhismahan casriga ah wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland mudane Xuseen Cabdi Ducaale ayaa madaxweynaha ka hor hadal uu ka jeediyay xafladani waxa uu ku xusay waxqabadka ay muujisay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamartu waxa uu ka hadlay hirgelinta dhismahan casriga ah ee quruxda iyo bilicdaba leh isagoo u mahad celiyay shirkadii maalgelisay iyo kuwa kale ee iyaguna ka qayb galayba madaxweyne nagoo ku taagan wadadii waxqabadka iyo horumarka ee bartilmaameedka u noqotay dowladdaada waxaanu really ku tallaabsanay horumar iyo waxqabad ballaaran oo maanta ay ka mid tahay furitaanka wasaaraddan cusub aanu dhisnay waxyaabaha runtii ugu mudan ee aan maalinkan maanta wax ku oolka ah ee dowladdaadu ka tegi doonto insha allahu tacaala marka waqtigeedu dhammaado ayay ka mid noqon doontaa insha allahu tacaala hawl badan baa madaxweyne gashay wasaaraddan dhismaheeda qacmo badan iyo dad badan oo iskaashaday ayay suurtageliyey intaanan madaxweyne gelin bal wasaaraddan sidaan u dhisnay waxaan reeli doonaya inaan taabto wasaaraddu markii hore siday ahayd waxaanu madaxweyne ku jiray gurihii isticmaalka u dhisay kontomaadkii waxaa jiray aleel in yaroo lagu kordhiyey oo qayb ka ahayd oon runtii aan aada u qurux badnayn oo dowladihii hore ee laga horreeyey ay dhiseen markii markaanu aragnay wasaaraddu siday u eg tahay waxaan markaa ku tashanay inaanu wasaarad qurux badan dhisno sababta ay tahay madaxtooyada bay kasoo horjeedaa shaaricii madaxtooyada ayay saaran tahay markaa dhismo u qalma cinwaanka wasaaradda ku taalo ayaan markaa teergaraynay inaanu dhisno oo bilic kusoo kordhiya magaalada
waxa markaa aanu eegnay sharaa'iga petroleumka ee nala jooga ee heshiisa inagula jira inaanu u baryo tagno oo aanu weydiisano inay nagala qabtaan wax sida ay maalgelin lahaayeen hawshan maanta daartan ugu dhistay waxaanu ku qancinay markaa hadda 6 sharikadood tihiin marka lagu daro kuwa la shuraaka ah isu tago isu geeya lacagta oo dabeetana markaa shirkad waliba yaani de miisaan weyn aan ku dhicin marka lacagtii sidaas ay ku soo ururtay runtii lacagtii markaanu aragnay inaanu hayno oo ay ka timi runtii sharaa'iga petroolka ka timi waanu aad iyo aad mahad weyn ugu celinayno inay naga caawiyeen maalgelinta wasaaradda khaasatan shirkadda la yidhaaho DNO oo mudnaan weyn leh oo aad iyo aad nogala hawlgashay inay magaranaysaa ay maalgeliso wasaaradda oo ay ku xigto shirkadda Ragas la yidhaaha iyadoo runtii midnaan weyn leh runtii aad iyo aad baan magaranaysaa uga mahadnaqayaa maalgashiga ay maalgelinta ay siiyeen wasaaradda ku dhisnay wasiirku waxa kale oo ka hadlay waxqabadka kale ee wasaarad ahaan ay ku tallaabsadeen xagga tamarta madaxweyne rol weyn baan ka ciyaaray inaanu sare u soo qaadno aqoonta lagaga faa'iideysto tamarta cusboonaata oo bandhig cilmiyeed badan aan u furay sharaa'iga tamarta oo aan muxuu ahaa pilot projects u sameynay meelo badan baa sida la ajirgeed imika laga fahmay in markaas laga faa'iideysto tamarta ilaahay inay siiyay cusboonaata oo ay kamid tahay dalka magaalada Laascaanood la yiraahdo burco imika mashruuc weyn oo tamareed ka socda soo ka dhamaaday waxa kale inoo soo socda insha Allah taala oo hadda qaanta lagu hayaa hay'adda DFID ay naga caawisay dawladda Ingiriiska naga caawisay 6 meelood oo dalka kamid ah magaalo kamid ah in tamar cusboonaata iyadana laga moogtay naga la sameyn doono oo la awoodi karo oo jaban insha Allah taala waxaanu madaxweynaha kala sameynay Petroleum Act ama Petroleum Law ama Petroleum sharciga petroolka lagu hagayay waa arrin muhiim ah arrintaas lafteedu muulahay sharci petrool dalku laba sharci baan ka sameynay sharcigii lagu hagayay petroolka soo saarkiisa iyo intaajkiisa iyo sharcigii lagu hagayay haddii wax inoo soo baxaan dakhliga inaga soo gali doonay marka labada sharci laftoodu way naga gudbeen waxay u gudbeen xeer dejinta insha Allah taala si labada sharcina way noqon doonaan sharci bay noqon doonaan insha Allah taala hadda waxaan dhamaynay madaxweyne hordhici sahaminta shidaalka oo ay kamid tahay geological studies wax la yiraahdo iyo kuwa diyaarada lagu baaro ama airborne surveys la sameeyo way noo dhamaadeen hadda madaxweyne aynu joogno waxa insha Allah taala aanu rajaynaynaa hawshii inaga hakatay 2013 inaga hakatay ee shidaal baarista ahayd inay dib u balaabanto oo ay dalka ka bilaabanto mashruuc aad iyo aad u ballaaran oo horseedi doona shidaal baaristii ugu weyneed ee ugu ballaanay dalka intii aynu gobnamadeen la soo noqonay insha Allah taala maayirka caasimadda Hargeysa ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta mudane xaaji cabdikariim xuseen cabdiwaraabe oo kamida golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ahna mid kamida rukunada ugu muhiimsan ee iyagu dhidibada u taagay nabadgelyada dalkani uu ku faano iyo horumarka uu maanta ku tallaabsadayba waxa uu hadalkiisa ku yidhi sida ay u socoto xukuumaddan waa wax ilaahay loogu mahadnaqaa haddii madaxweynaha hogaaminaya tahay madaxda hadday qalloocato mujumutusaabaan madaxweynaha wasaaradiisa dhaqankiisa dhallinyarada shaqaynaysa siday xukuumaddanu u socoto ilaahay waxaanu baryaynaa sabadishaana inay ka dadataa sidaa u socoto abaanu ilaahay baryayna waxaa kaloon leedahay maaha adduunku intuu dhisayay wax dhiman lama waayo laakiin sidaa u shaqayseen laba dhibcood oo yaryar oo gacanteena ku jira intaan laydin ilaahay xag laydin bedelin inaad ku dhaqaaqdaan wasaare iyo agaasimo iyo shucba ayaan jeclahay oo maxaya biyaha iyo sibirhka labaduba gacanteennay ku jiraan waana u baahanay waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha shirkadda najax ee dhismahani dhistay mudane cabdiraxmaan ismaaciil
maxamed xasan cali weji oo suxufi rugcadda ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa wadaniga ugu dambeeyna madaxweynuhu waxa uu shahaado sharaf ay madaxda iyo shaqaalaha wasaaraddu ugu tala galeen guddoonsiiyay wasiirka wasaaraddaasi iyo sidoo kale shirkadihii ka qayb qaatay dhismahan wasiirka xanaanada xoolaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukusi ayaa shaaciyay inay soo gabagabowday qaybta koowaad ee talaalka xoolaha Soomaaliland sidoo kale wasiirku waxa uu ka hadlay halka ay marayso dhoofka xoolaha ee muusinka xajka ee sanadkan wariyahayaga Khadar Qulle ayaa warka inoo haya shirkan jareeda wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukusi ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo door oo ay ka mid yihiin talaalka ay ku sameeyeen xoolaha Soomaaliland halka uu marayo waqti xaadirkan ee muusinka xajka ee xoolaha loo dhoofinayo wadamada Carabta iyo heshiiska xukuumadda Soomaaliland la gashay ee shirkadda DP World oo soo dhaweeyay ugu horreyn wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Mr Cukusi ayaa waxa uu sheegay in mashruuca ballaaran ee talaalka xoolaha Soomaaliland ee ay waday wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland mashruuci talaalka ee aanu gacanta ku haynay xoolaha wixii aanu daweynay muddo 6 wiig ah wixii aanu talaalay iyo wixii la daweeyay inay ogaadaan mashruucaasi waxaan doonaynay 3 milyan oo neef ayay ahay qorshuhu in la talaalo talaalkaasi ilaa imika waxa aynu talaalay 2 milyan iyo 100,000 oo neef muddo 6 wiiga 900,000 ayaa haraya 900,000 waxa la talaalayaa 3 wiig ee soo socda oo wali waqtigii talaalku ma u dhamaan waxa la daweeyay 465,000 oo neef wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay halka waqti xaadirkan marayo dhoofka xoolaha muusinka xajka ee ay dawladda Soomaaliland u dhoofiso wadamada Carabta muddo 8 bilood oo bishii 8aad imika dhamaatay xoolaha inaga dhoofay waa 3 milyan iyo 65,000 oo neef haddii carafada qofku uu ka fikirana waa 1 milyan iyo 638,000 oo neef waa ariga geela iyo looda iyo inta badan way yar yihiin xilliga carafada waayo carafada neefka ariga ah ee diintu waajibisay ayaa inta badan noqonaya ka dhoofaya dhinaca kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukusi ayaa waxa uu ka hadlay oo uu sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiska xukuumadda Soomaaliland la gashay shirkadda DP World isagoo sheegay in horumar ballaaran oo dhinaca dhaqaalaha iyo waliba horumar ballaaran oo dhinaca dekedda ah lagu soo kordhin doono dekedda weyn ee magaalada Berbera heshiiska dekedda Berbera ee DP World iyo jamhuuriyadda Soomaaliland in badan baa la sharxay sida loo sharxay ee loo faahfaahiyay heshiisku in uu guul u yahay Soomaaliland ayaana run ah haatana waxa aan doonayaa inaan hambaliyeeyo marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marka labaadna kooxda wasiirada ee gacanta ku haysay hawsha heshiiska dhinaca Soomaaliland oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka Dr. Saad wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamuud Xaashi wasiirka wasaaradda maaliyadda Samsam wasiirka wasaaradda qorsheynta waxa kale oo hambaliyeynaya mas'uuliyiinta kale ee xitaa xisbiyada mucaaradka ah ee taageeray ee fahmay qadiyadda Soomaaliland dhismaheeda faa'iidada uu leeyahay dekedda Berbera in arinteeda meel lagu tiiriyo wargeysyada ugu waaweyn ee caalamka qaar aan weligood bayna soo hadal qaadin ayaynu suuq u ahayn oo ka hadlayay hadday journalka Wall Street tahay hadday kuwa Fox News ka tahay hadday kuwa Washington Post tahay
hadday wargeysyada ugu waaweyn ee caalamka tahay iyo hadday wax alla waxa wargeys ka soo baxa khaliijka ay tahay waxay ka hadlayeen jamhuuriyadda Somaliland iyo shirkadda DP World heshiiska ay gaadheen marka waad arkaysaan dhaqaale ahaan faa'iidada ay u leedahay dalka shaqo abuurka faa'iidada ay u leedahay waxa dheeraatay oo wax weyn oo kale looba fadhiyo noqotay inta maanta magaca jamhuuriyadda Somaliland maqashay ee uu heshiiskaasi sababay ee uu talaabo kasto kale aynu qaadnay aanay wali sababin muhiimadaas uu leeyahay mudane cabdilaahi maxamed daahir cukuse ayaa shacabka Soomaaliland waxa uu soo jeediyay inay soo dhaweeyeen heshiiskaasi oo uu sheegay inuu ku abuuri doono shaqo abuur ballaaran shacbiga Somaliland ku amaano oo ku bogaadiyo maanta DP World inay tahay guul soo hoyatay oo dawladnimadeena wax badan ka tari karta cid ay wax yeelaysaa ma jirto laakiin cid ay wax taraysaa jirto jamhuuriyadda Somaliland iyo da'da soo koraysa shaqada abuurmi doonto ayay taraysaa sawirqaadi cabdi cumar jibriil iyo khadar maxamed maxamuud khadar qule telefishin qaranka Somaliland xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay ayaa ka waramay xaaladda deegaanada Dararweyne iyo Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag waxa kale oo uu ka hadlay wafdi ka socda xukuumadda Somaliland oo deegaanada socdaal ku soo gaadhay iyagoo halkaana wafdigu ay u tageen xalinta khilaafaad dhawaan soo kala dhex galay laba beelood oo walaalo ah oo deegaanka ay dirar colaaday ku dhex martay wariyahayaga gobolka Sanaag ayaa warka noo soo diray wafdiga wasiirada uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Cadami oo ay ka mid yihiin wasiirka warfaafinta Cusmaan Cabdilaahi Saxardid Cadaani wasiirka dibadejinta Cali Siciid Reegal wasiirka duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybe wasiir dawlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdirashiid Riyaraac ayaa soo gaaray degmada Ceelaf Weyn gobolka Sanaag rasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceelaf Weyn iyo madax dhaqameedka ayaa wafdiga kaga hortagay galbeedka degmada Ceelaf Weyn rasaabka gobolka Sanaag mudane Axmed Cabdi Falaay ayaa markii wafdigu soo gaareen gudaha magaalada Ceelaf Weyn ka warbixiyay ujeedada socdaal waxaa lagu soo gaaray gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceelaf Weyn oo ah eedii ay shaqaqadu ka dhacday dilka iyo dhimashada dhaawaca ahayd wasiirada jamhuuriyadda Somaliland oo ah shan wasiir oo hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga mudane Axmed Xaaji Cali Cadan halkay noogu yimaadeen waxa aan ku soo dhaweynay degmada Ceelaf Weyn iyo guud ahaan gobolka Sanaag nimanka odayaasha wasiirada waftiga waxa ay u yimaadeen dhibti ka dhacday degmada Ceelaf Weyn iyo lawaaxigeeda ka tirsan gobolka Sanaag ee dhimashada iyo dhaawaca ay ka dhasheen dadka walaalaha aan waxa aad haba yaraatee u dhaxeeyay hore aan jirin mushkiladaasi ay dhaxmartay ayay u yimaadeen insha Allah waxaanu rajaynaynaa biidmilaahi in ay shaqaqada iyo dhibaatada iyo diriirta iyo colaada ay dhameystiri doonaan midaas oo u soo diray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo ilaa iyo maalinta halka wax ka dhaceen aniga gudoomiyaha gobolka iyo ciidamada kala duwan ee geesiinta qaranka ayaa ku dhex jirnay ilaahay baan u mahadinaynaa wax dambe wixii ka hor inaanay dhicin insha Allah taala waxaan ka rajaynaynaa ilaahay biidmilaahi in uu bogooda burcad mariyo oo hawshaan ka waftidan ballaaran ay u timina ay dhameystiri doonaan iyaguna ay insha Allah sahlan doonaan wax kasta oo ka dhacay iyo wax kasta oo dhex maray waxaan leeyahay sidaan shalay iyo maalmo hore aan iftiimiyey warcad kasta oo wanaag doonaysa wanaag jecel ka qayb qaata waanada iyo wiciidka iyo wacdiga uga qayb qaata sidii nabad loo heli lahaa waarta oo dadka walaalaha ay yaani u walaaleeyay lahaayeen colaadaas nabad ay ugu bedelan lahaayeen kula soo taliya taraf kasta iyo cid kasta iyo ummad kasta oo arrinta ay khusayso haday yihiin kuwa jooga Sanaag iyo Ceelaf Weyn iyo dhammaanba meelaha kale ee dadkan ehelada ay joogaan ama asxaabtoodu waxaan leenahay wanaagu baa waxtara maanta waxba ma tarto kelimad baa laga yaabaa in ay fidna dhaliso adigana ay naar iyo mushkilad ay ku horseedo kelimad wanaagsan oo la yiraahdo يعني نبض أي هرسد يهرمود كل قطع شنو يكورسد والله ولا الليال إلى يوم مالتي أي واحد بلعب وحان هلك أتهجني هم بيأهل يعني حبض دبرتك وقال له واحد أهل الآن ولا مسلمين تأون كلا بالبايلين ومحمد سوتي تلفزيون كقرنكا تجمد عرفي قبل كسنة
afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan xuseen aadan cege deyr ayaa ka warramay muhiimadda ay leedahay heshiiska maalgelinta dekedda berbera ee xukuumadda somalilan iyo shirkadda DP World ay ku kala seexdeen dalka sutaga imaaraadka carabta. xukuumadda jamhuuriyadda somalilan oo garwadooyinka iyo madaxweynaha qaranku waxaa ka go'an inay mar walba u guntato oo ay horseed ka noqoto horumarinta danaha qaranka kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidii bulshada loo horumarin lahaa. dekedda berberi waxay ka mid tahay ilaha dhaqaalaha ugu muhiimsan ee dalkeena la doonayo inuu horumar ku gaaro. muddo badan ayaa waxa lagu jiray baadigoob iyo raadco sidii loo horumarin lahaa ama dekedda loo maalgashan lahaa. marka la arkay dekedaha iyo marsooyinka ku yaala mandaqadu xawliga horumaray ku socdaan waxa lagama maarmaan noqotay inaynu ka hadhno oo aynu tartanka ka hadhno iyo inaynu horumarino dekedeena. shirkado badan oo danaynaya ayaa jiray inay dekedaasi ay maalgashadaan oo horumariyaan. gabagabadii waxay noqotay in lala galo wada hadal shirkadda DP World oo ah shirkad caana 27 dekedooda adduunyada badhna maamusha badhna maalgelisay. ugu dambeyntii madaxweynuhu wuxuu gartay inuu guddi wasiiraa uu magacaabo kuwaasoo la bilaabay wada hadal iyo gorgortan iyagoo ama ka amba qaadaya danaha qaranka iyo maslaxadda ummaddeenu halkay ku jirto shirkadda DP World bishii 5aad 2016. nasiib wanaag waxay kolba meel soo gaadhaba baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan ayaa wuxuu ku ansixiyey cod 69 in dawladda somalilan ay heshiis la geli karto shirkadda DP World. dabadeed waxaa la amba qaaday in loo galo oo la foguro heshiiska rasmiga ah ee ay wada galayaan xukuumadda somalilan oo ay wakiil ka tahay dekedda berbera Port Authority iyo dawladda imaaraadka carabta oo ay wakiil ka tahay DP World ama Dubai Port World. bifadlillaah shalay ayaa waxa soo gabagaboobay heshiiskii muddada badan soo socday. dabadeedna waxaa qalinka ku duugay xukuumadda somalilan oo goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici. waxaana somalilan u saxeexay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire. dhinaca imaaraadkana waxaa u saxeexay gudoomiyaha guud ee shirkadda DP World. waa heshiis taariikhi ah waa dhacdo taariikhi ah waa dariiqii horumarka ee ummadda somalilan looga faa'iideyn lahaa. guud ahaana waxa ummadda somalilan aan ugu baaqaynaa inay taageeraan dekedda berberi inay lagama maarmaan u tahay geeska afrika waa muuqataa. waa geedka waa dariiqa ama waa hilinka ugu muhiimsan ee isku xidhi kara bariga afrika iyo dunida kaleba ha noqoto Yurub ama bariga fog. in aynu ummad ahaan isku tashanno oo wixii aynu haysano aynu horumarinana waa himilooyinka iyo hadafka ay xukuumaddani leedahay. wararka warbaahintu ay soo qoraysana waxaan leeyahay waa kuwa aan sal iyo raad lahayn. waxa muhiima inaynu haddii aynu nahay warbaahintu way madax bannaan yihiin waanan ku bogaadinayaa inay madax bannaanidooda ilaaliyaan. laakiinse arrinta wadaniyaddu markay noqoto arrinta wadaniyadda iyo arrinta qarankaaga bilaysa waxaa lagama maarmaana inaad warka miisaanto oo aad ka eegto muxuu warkani faa'iido u leeyahay qaranka muxuuse khasaare u leeyahay. waxaan shacabka somalilan ugu baaqayaa iyo guud ahaanba ummadda jecel horumarka inay garab istaagaan guusha qaranka somalilan u soo hoyatay. maayirka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa kormeeray dhismaha jidad kala duwan oo laga hirgelinayo gudaha magaaladaas taasoo hirgelinayso dawladda hoose ee magaalada laascaanood. wariyahayaga barkhaad cumar ayaa warka nooga soo diray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. gudoomiyaha golaha deegaanka degmada laascaanood ahna duqa degmada laascaanood mudane cismaan saleebaan yare ayaa saaga kormeer ballaaran ku sameeyey wadooyinka hor leh oo dawladda hoose degmada laascaanood oo kaashanaysa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ay ka hirgelinayso gudaha magaalada laascaanood. wadooyinkan ay dawladda hoose ka hirgelinayso gudaha magaalada laascaanood ayaa qayb lixaadle ka qaadanaya soo celinta bilicda magaalada laascaanood. duqa degmada laascaanood ayaa baaq u diray bulshada ku dhaqan magaalada laascaanood iyo ganacsataduba inay kaga qayb qaataan soo celinta bilicda magaalada laascaanood sidii ay u qurxin lahaayeen wajahadaha ganacsigooda. waxaa kale uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo oo qayb lixaadle ka qaatay wadooyinka cusub uu ka hirgeliyey isagoo sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee ka hirgeliyey magaalada laascaanood wadooyin.
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed wuxuu bixiyay 12 kiiloomitir hadda 6 gacanta lagu hayo wadogtii waa madaxweynihii ugu horeeyay wuxuu qabtay Laascaanood intaas oo wada maanta dhex maraya 10 kiiloomitir baa dhex mara lixina wali waa inoo hadhay isagana waa ammaan buu ku mudan yahay madaxweynaha kaliya wuxuu qabtay Laascaanood inuu ka hirgalaan dhabooyinkan oo aanu biri ku bilaabi doono jaygii iyo daamirkii waxay ka mid tahay 5 wado oo hadda aanu wadno oo si dhaqso loo dhagax dhigi doono oo ay tan iyo 3 hadda dhamaad ku dhow iyo laba dhinac naga xiga ay ku jiraan dadweynaha waxaan u sheegayaa meeshii shaqadu ku socoto inay fududeeyaan hadday tahay biraha hadday tahay santaqadaha hadday tahay kuwa leedka ka taagan waxaan leeyahay bilicda dadweynuhu u diyaar garoobo waxaanu ka shaqeeynaa magaalada gudaheeda jidad badan oo awal ay fadhiday biyuhu fadhiyeen aan jid la maro jirin waxaan u diyaar garoobaynaa bilicdii magaalada waxaan uga digaynaa qofkii wada degan inaan cidina baryen cagaftaasaan wadanaa qofkii wada degan waanu ka duminaynaa shaqada waxa ku yaala meheradaha laamiyada ku yaala sandaqadaha haweeney fududayaan meesha wadada xiriir ka tahay waa barqad Cumar Axmed warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood warkii oo daawadayaasheeda qadarinta sharafta iyo karaamada naga mudan aydu kala socoteen telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland intaas ayuu ku egyahay intaanu ku kulmayno warka xiga hadii Allah awood leh uu ogolaado waa dhammaan akhyaarta igala qayb qaadatay duubista diyaarinta iyo isku dubaridka warkan iyo anigoo Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiida oo meel kasta joogtaan bayda ku dhaafaya salaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh